Laba aayadood ood uga caafimaadayso isha iyo xasadka, hadduu rabo ha ahaado mid jiray 100 sano hadduu Alle idmo. Haa, waa laba aayadood oo keliya oo Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala uu kugu siinayo caafimaad taama ood uga caafimaadayso isha iyo xasadka, hadduu rabo 100 sano ishaas iyo xasadka mid soo jiray ha ahaado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabta sharafta leh, aad baan idin salaamayaa meel kastoo daafaha dunida ka joogtaan. Waa Sheekh Faysal. Waxaan doonayaa maanta inaan soo gudbiyo laba aayadood ood uga caafimaadayso isha iyo xasadka hadduu Alla idmo. Balse walaalayaal, intaanan labada aayadood u gudbin, waxaan idinka codsanayaa haddaad nagu cusub tahay inaad subscribe noo saarto. Waa xaqa keliya in kugu leenahay. Like-tana aad noo riixdo si uu noogu noqdo dhiirigelin fideogana meel dheer uu u gaaro. Dad badan oo walaalahaaga oo isha iyo xasadka la xanuunsanna ay uga caafimaadaan channelkana ay ku soo xirmaan. Allah ku barakeeyo. Qof kasta oo fideogan share gareeyo, Ilaahay waxaan uga baryayaa caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaadasan inuu Ilaahay siiyo. muraadkiisa khayrka inuu Ilaahay midigta ka saaro. Meesha uu ka ooman yahay in Ilaahay ka soo waraabiyo. Adduunyada fi nicma, aakhira fi janna Ilaahay inuu siiyo. Qof kastoo subscribe, like iyo share taabto, Ilaahay waxaan uga baryayaa cimrigiisa inuu dheereeyo, ceebtiisana asturo, camalkiisana suubiyo. Dad iyo dunyo iyo diinna mid barakooba Ilaahay ka dhigo. Adduunyada fi nicma, aakhira fi janna Ilaahay inuu siiyo. Taasaan Ilaahay u weydiinayaa. Aamiin yaa Rabbi. Ilaahu naga aqbal. Haddaan u laabto mawduuceena, waxaa jiro laba aayadood oo Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala haddaad ku barido ood isku tufto ood isku akhriso, Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala uu kaaga caafinayo isha iyo xasadka ku hayay. Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala qur'aankaas uu noo soo dejiyey walaalayaal. Ilaahay wuxuu leeyahay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un waraxmatun lilmu'miniin. Qur'aanka waan soo dejinnay inuu isagoo shifa iyo caafimaad u ah dadka mu'miniinta ah. Marka waxa weeye walaalayaal, qur'aanka kariimka ah ayaa Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala dawadeennii iyo waxeennii oo dhanba Ilaahay uu noogu ileeyey. maasha Allah, maasha Allah, maasha Allah. Ninkii Ilaahay fahamsiiye unbaa fahamsan. Marka insha Allahu Tacaala qur'aanka kariimka aan ku dadaalno inaan isku daaweyno, inaan akhrisanno, inaan ku dhaqanno, in Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala aan ku barino, aan isku dayno insha Allahu Tacaala. Ilaahayna wuuna barakeynayaa, wax kasta oo khayrana Ilaahay wuuna siinayaa. Intaa haddaan ka gudbo walaalayaal, saan wada ogsoonahay isha iyo xasadkaba waa wax jiro, waana wax Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala uu ku sheegay qur'aankiisa kariimka ah. Xasadka haddaan ku hormaro, dee suurad dhan baaba jirto oo min sharri xaasidin idaa xasada lagu soo gabagabeeyey. Aayado kale oo iyadana sidaas oo kale xasadka ka hadlaya ayaa jira. Am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlihi oo kale. Marka waxa weeye xasadka wax jira weeye. Xasadkana wuxuu noqon karaa qariib, wuxuuna noqon karaa baciid. Macnaha waxaan ka wadaa dadka kuugu xiga ayaa ku xasdi karo, dad kaa fogna way ku xasdi karaan. Marka xasadka ma laha meel sidiisaba u go'an oo la leeyahay meeshaas sooma dhaafi karo, ma jirto wey. dadka kuugu xigo ayaa ku xasdi karaan. Ishana waa sidaas oo kale, oo ishu waxa weeye qofku uu ku ilaysan karaa. Marka dad lagu yaqaano noocaasna wayba jiraan oo dadka ileeyo. Marka Ilaahay baa laga magan galaa wax kasta oo dhan oo isha iyo xasadka iyo sixirka iyo wax kasta oo xun oo dhanba. Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala haddaa isku xirto walaal, Ilaahay wuu kaa badbaadinayaa. Ilaahay wuu kaa badbaadinayaa. Marka walaalayaal, labada aayadood waxa ay ku jiraan suuratul qalam ama suuratu nuun, hadba sidaad u taqaano. Waana aayadaha maaragtaaye 51 iyo 52 lambaradaas ayay kala leeyihiin. waana suuratul qalam aakhirkeeda. Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala wuxuu leeyahay وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. labada aayadood ayaad akhrinaysaa walaal subax kasta 7 maalmood 41 jeer ayaad akhrinaysaa aroortii. galabkiina sidoo kale 41 jeer ayaad akhrinaysaa. miyaad soo qaadanaysaa cadiina oo biyo iska caadi ah, waad ku tufaysaa, kadibna waad cabaysaa, jirkaagana waad marinaysaa. Ilaahayna waa kugu caafinayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.